waxaa soo gaaray dalka Sacuudiga magaalada Madiino ardaydii ku guuleysatay tartanka Quraanka Kariimka ee lagu qabtay masjidka suuqa Carmel ee ku yaala gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. dhammaan 120 qof ayaa waxaa lagu macsuumay inay tagaan cimro dalka Sacuudiga. waxay soo mareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar, waxay yimaadeen Makka al-Mukarrama, haddana waxay ku sugan yihiin Madiina. maanta waxay booqasho ku tageen buulta Uhud, buultaas oo taariikh ku leh dhinaca Islaamka, iyagoo ardadaasi waalidiinta iyo macallimiintoodaba ay ilin ka muuqatay. 20 qof ayaa waxay yimaadeen magaalada Makka bisha Ramadaan ee barakeysan si ay ugu cimraystaan. ardaydii macallimiintii iyo waalidiinta ayaa booqasho waxaa loo geeyey meesha taariikhda kule diinta islaamka ee buulta Uhud, halkaas ay ku geeriyoodeen 70 asxaab ah uuna ka mid ahaa nebiga adeerkiisa Xamza. Uhud waxa arkay meelaha oo waxa arkay battlefield-ka iyo waxa arkay graveyard-ka 70 Muslims oo ku dhintay. waxaan dul saaranahay buurtii أحد حاجة نقدر قبورياشي ويان حاجة نفوتنا بورتي أحد ويان حاجة هذه معركة أحد وحنا كلا صوب وقناي ضدكي صحابة رسول الله ودجالك لقول لاي هالكي لقوا آسي. For bringing us to this beautiful mountain. This is a mountain where 70 Sahabis died. May Allah bless their soul. And this is where Khalid bin Walid. This is where the Prophet ﷺ told them to stay, even if they're winning or if they're losing. Do not leave. kusugannahay hadda yartaan buurtii Uhud waa buurtii runtii halkii asxaabinta dagaalka muslimiinta iyo gaalada ay ku galeen. Faraxsan inaan joogo buurta Uhud. meeshii maaragtay ay ku dagaal ku galeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabtu gaalada ay kula dagaalamayeen. meelina macadi ma inaan aragno meeshii nabiga ku dagaalamay oo Quraysh dagaalo soo galay waa in macadi ma waa experience fiican waxna tana dadka. I feel happy. And I feel I know. And I feel had the weapons. Getting scared of the Galos. This is the mountain that the Prophet fighted, and he told his companions to stay here and not go down. تاكنا بورتي جبل أحد صحابتي كنت دقالمان عدوين كنت جبشين إن شاء الله. waxaan dul taaganahay jabal Rumaan waa meeshii uu macrakadii dagaalka ka dhacday. xaqiiqdii macrakadan waxaa ku jira xigmad aad u weyn run ahaantii oo ah in amarka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadii la diido si saxaabadiisa caaqib xun lala kulmayo. waa buulta Uhud, Zakariya Aadan, Universal TV, Uhud, Madiina, Saudi Arabia.